لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر نفعه عم البوادي والحواطر قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال. أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث ووضع عنا الآثار والأغلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن المال فتنة يختبر الله سبحانه وتعالى بهذا المال عباده هل يحسنون التصرف في الاكتساب والإنفاق أو يسيئون في ذلك. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. عباد الله، إن من أعظم المحرمات في الكسب الربا، وقد حذر الله منه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. عباد الله، walaalyaal khudbadeena maanta waxaan kaga hadlaynaa التحذير من الربا، digitaan oo la isaga digahayo riba. riba maxay tahay? xukunkeeda muxuu yahay? xikmadda loo reebay maxay tahay? anwaacdeeda meeqaa weeye? maxaa dhib ahoo ka dhalanahaya? ribo waxaa la yidhaahdaa waa ziyaado. in shay wax lagu daro la ziyaadiyo ayaa ribo la yidhaahdaa. wax koreeye ayaa ribo la yidhaahdaa xagga luqada carabiga. xagga sharciga waxaa la yidhaahdaa asalkii beeca oo wax lagu ziyaadiyo ama deyntii oo wax lagu ziyaadiyo ama laba shay oo isku mid ah in la kala bedesho oo wax lagu ziyaadiyo ayaa la yidhaahdaa. xukunkeeda dhinaca shareecada islaamka waa la xarimay. keli laguma xarimin kitaabka qur'aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wassalaam, ama diinta islaamka keli laguma xarimin. diimihii ka horreeyeyna waa lagu xarimay ribada. diimihii ka horreeyey sidii towraad iyo injiil waa lagu xarimay. sababta loo xarimay maxay tahay? waxaa loo xarimay dhib fara badan oo ka dhalanaya dartiis ayaa loo xarimay. maxaa yeelay dhibkeeda qofkii qaadanaya
iyo kii bixinayay keli kuma ekee wuxuu u gudbahayaa mujtamaca ayuu u gudbahayaa dhaqaalihii waddanka ayuu u gudbahayaa wax soo saaritaankii waddanka ayuu u gudbahayaa dhib aan la soo koobi karin ayaa ka dhalanhayo sidaa darteeda ayaa loo xarimay aayadaha ka hadlahayo in mamnuuc ay tahay ribada waxa weeye alla hadalkiis uu yidhi dadkii ilaahay rumeeyeenow ilaahay ka cabsada wixii haray oo riba ah isaga taga haddii aad tihiin dad alla rumeeyey haddaad ka tegi waysaan ribad aad iska dhaafi waysaan ogaada ilaahay inuu idinla dagaalamahayo meel qur'aanka dhexdiisa lagu sheegay ma laha ilaahay inuu addoonkiis uu la dagaalamayo aanan ka ahayn riba ninka ribada qaadanhayo iyo kan bixinaya labadaba ilaah ayaa la dagaalamahaya nin alla la dagaalami karana ma laha waxaa la yidhi haddaad towbad keentaan ood alla xaggiisa aad u soo noqotaan oo ribada aad iska dhaaftaan ra'sumaalkiinna ayaad leedihiin ra'sumaalkiinna ayaad leedihiin liidinma dulminaya idinkana markaas wax ma dulminaysaan ribadu noocyaal ayay leedahay noocyaalkeeda waxaa ka mid ah ribo la yidhaahdo riba nasii'a ribada dibdhigga nasii'a waxay tahay qof ayaa deen kaa qaadanhaya calaa sabiili lmithaal marka waxaad ku heshinaysaan deentaadii inuu waktigaas uu kugu bixiyo waktigii ayaa la gaarahayaa waktigii markii la gaaro qofkii deenta laha wuxuu dhahayaa mase deentaydii si mase yacni marka oo dulsaaraan ku dulsaarahayaaye dheeradaan kugu darahayaaye haddii waktigii la gaaro uu bixin waayo kol hore dulsaar ayaa la saaray dulsaar labaad ayaa la saarahayaa mid saddexaad ayaa la saarahayaa kii deentii dadku ku lahaa xoolihiis unbaa usii badan hayo kii kalena dhibaato ay usii siyaadaysa saa darteed rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu war dadki ilaahay rumeeyeenow laa taakulu riba ribaha cunina adaafa mudaacafa iyadoo labanlaab ay lasii labanlaabay ilaahay ka cabsada haddaad iska dhaaftaan ribada waad liibaanaysaane haddaad iska dhaafi waysaanna waad khasaaraysaane ilaaha ka cabsada taasna si ayaa la yidhaahdaa jaahiligii ayaa la isticmaali jiray shareecadu way xarimtay oo waa la reebay mid kale waxaa la yidhaahdo oo jirto oo la yidhaahdo riba alfadli riba alfadli waxay tahay laba shay oo isku mid ah intii yaanma iska kala bedesho oo ziyaado lagu daro مثلا ذهب أو لقوا يبيع لك على دايريو فضة لقوا يبيع لك على دايريو بريس لقوا يبيع لك على بديو عانى لقوا يبيع لك على بديو تمر لقوا يبيع لك على بديو تاس ولا رهيب إن لك على بديو ولا رهيب وممنوع هذه لو كلا بدلن هاي لو كلا إبسن هايو إنه يسكو يعني مرك قيمة أي يسك قياس أي نقدان هو إكان اللي رادو waxa kale yaana riba soo galahayo hadii mesela sarf lacag lagu sarrifahayo mesela ka dhig suuqan oo kale Kenya iyo waxaad ku sarrifaysaa dollar sidii raba loo sarfaya laakiin waxa loo baahan yahay hoo iyo keen hadii aad tiraado lacagta dollarka dhan ku si hadhoon ku siin hayaaye had 100,000 isi riba ayaa soo galahay lama ogolo waxa la rabaa هو يوكين أي لو بحن يهي
nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay dahab lagu iibinayo fidda lagu iibinayo burbur lagu iibinayo arrimahaas oo dhan markuu sheegay wuxuu yidhi waxaa loo baahan yahay buu yidhi inay isku midna ay noqdaan isku qiyaas ay noqdaan hoo i keen ay noqoto hadday sidaa noqon wayso riba ayay noqoni caalamkan ku nool nahay wuxuu noqday caalam ribowi saa darteed cabaadka adduunka ka yeerayo dhan waxaa sabab u ah ribadaas ayaa sabab u ah kol hore waxaa ribada qaadan jiray dad xoolo leh ayaa ribada qaadan jiray hadda masaakiintina way soo galeen nin kasta gurigiis ayaa looga soo galay waxaa leeyahay ribo qaado mobilkaad aad haysato ayaa lagugu xayeysiin hayaa oo masajo ay kuu soo dhacayaan oo lagu leeyahay intaas qaado hay-ada ayaa yacni marka oo bixin haya bangiyaal ayaa bixin haya dadkii oo dhan ayaa waxaa la rabaa addoomo inay noqdaan maxaa yeelay ninka hadduu mar loon uu qaato qofkii loonka uu ka qaatay ayuu addoon u noqon hayaa waad aragteen dawlooyinka afrikaanka iyagoo dhan in la guumaysan hayo maxaa lagu guumaysan hayaa deemaha la siin haya ayaa lagu guumaysan hayaa maxaa yeelay nin xoolo ka qabo lama hadli karo hadalkiisana ma diidi karo wixii sameyn lahaa ayuu samayn hayaa saa darteeda yacni marka dadka badidooda dhan addoomo ay u noqdeen dadka badidoo dhan waxay noqdeen addoomo ayay noqdeen indho la-aan ayay noqdeen dhigo la-aan ayay noqdeen caqli la-aan ayay noqdeen sababtana maxay tahay deemahaas wey sharciga islaamka ma diidano dadka deen inay kala qaataan bal inuu diidan yahay iska dhaafe aayadda qur'aanka ugu dheer waxay ku soo degtay deen oo la kala qaadan hayo laakiin islaamka ma ogolo waxa la yidhaahdo dulsaar xiiladna ma ogolo haddii dadka qaar ay dhaheen magacaan ribada aan ka bedelno loon aan ka bedelno aan dhahno saafes iyo khidma waxa jiri maaha waxaas waxaa lagu leeyahy intaasaa lagu siin intaan waxaa lagu saaray khidmaa lagu saaray masaafisa lagu saaray waxaas waxa jiri maaha sharciga islaamka ma ogolo waxa la yidhaahdo dulsaar walow boqolkiiba hal ha noqdo sharciga islaamka ma ogolo laakiin deen in la kala qaato waaba naxariis ninka bixinayo ajar uu ka helahaya ninka qof muslim qof kale muslim oo wax deemin hayo ajar ayuu ka helahayaa kii qaatayna waxaa looga baahan yahay si wanaagsan inuu ku bixiyo markuu qaadan hayo wuxuu qaatay waqti uu qaatay la qoro marqaati loo yeelo ayaa loo baahan yahay sidii ninkan xaqiis uusan u dhumin kii biya qaatayna inuu si fiican ku bixiyo ayaa loo baahan yahay hadduu kan qaatay miskiin uu yahay wax baan haysanin kii yacni bixiyey waxaa looga baahan yahay inuu u sugo intaas ajar ayaa u socon hayo ma ogi diinta islaamka naxariis yacni ma diidano naxariis way ogoshahay yacni marka diinta gebigeeda wax diinta naxariista ayaa la yidhaahdaa inay dadka isu naxariistaan waa tan loo baahan yahay laakiin loon oo la qaato ribo la qaato waa cadaab naxariis ma ahan maxaa ninkan qaadan hayo wuu cadaabsamahayaa lacagta ayaa yacni marka isdulsaar ay noqoni way badani ilaa uu ka halaagsamo shacab ummaddana waxay u kala baxayaan dad yacni taajirnimo u siyaadaysa iyo dad faqiirnimo u siyaadayso kuwa deemaha qaadan hayo faqiirnimo ayaa u siyaadayso kuwa bixinayana xoolahood ayaa sii badnaan hayo maxaa yeelay waa loo soo shaqayn hayaa fadhigooda ay ku sugan hayaan fadhigooda yacni ay ku sugan hayaan kuwan way sii baaba'ahayaan ummadda marka way kala fogaane cadowtinimo iyo ayaa meeshaas soo geli iyo dhibaato haddaba maxaa ka dhalanhay oo ciqaab ah ribada la qaadan hayo maxaa khasaare ama dhibaato oo ka dhalan hayo lambarka koowaad rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu digay dadka ribada qaadan hayo oon ugu goodiyey inuu ciqaab hayo ciqaab adduunna wuu ciqaab hayaa ciqaab aakharana wuu ciqaab hayaa ciqaabka adduunka lagu ciqaab hayo waxaa ka mid ah xoolihiisoo dhan barakad ayaa laga qaadahayaa
cumrigiisa barakad ayaa laga qaadhayaa noloshiisa barakad ayaa laga qaadhayaa wixiisoo dhan baraka la'aan ay ku soo baxayaan allah ayaa leh yamxaqu llaahu ribaa wa yurbi sadaqaat ilaahay wuu tirtirhayaa wuu baabi'inhayaa ribada si kasta ha u badnaato meel kasta ha gaarto meel ma gaarayso way baabi'i aakhirkeeda ninkana balaayo baa ku dhici wa yurbi sadaqaat wixii xalaashan ilaahay uu barbaarin waxaad hadday xalaal yihiin oo ay yar yihiin ilaahay wuu ku barbaarinhayaa oo wuu ku badinhayaa wuu ku barakaynhayaa meel ay gaarhayaan hadday waxaad riba ay yihiin xaaraan ay yihiin ilaahay wuu baabi'inhayaa xaaraanta ribo keli ma aha sida axaadiis qaar noogu imaan doonaan waxaa ka mid a laaluushka oo la qaadanaya ayaa ka mid ah ilaan kuwa laaluushka qaadanayo iyo kuwa ribada qaadanayo waxba isma dhaamaan xaaraan ku darway ilaahay wuxuu ugu goodiyey kuwa oo ribada qaadanhayo barakad inuu ka tirtirahayo wuxuuna u sheegay kuwa ribada qaadanayo ogeysiiyey inuu la dagaalamahayo nin alle la dagaalami karana ma lahan taa waxay ku tusaysaa ribada dembigeeda dembi yar inuusan ahayn laba meelood unbaa lagu sheegay ilaahay addoomihiis in lagu dagaalamayo aayaddan iyo xadiid uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku cadday uu yidhi ilaahay uu yidhi xadiidu qudsi man caada waliyan lii faqad aadantuhu bilharb ninkii la dagaalamo buu yidhi ninkii weligayga ah mu'minka dhiba waxaan ogeysiinayaa inaan anigana la dagaalamahayo marka ilaahay owliyadiisa in la badbaadiyo ayaa loo baahan yahay oon la dhibin qool lagu dhibin ficil lagu dhibin أولي إلهي يا لي هذا مدن مي إليهن مكان مي إليهن قبيل مي إليهن مايا ننكستو إلهي سكعب صدا الله نرهمية ننكست ولي إلهي وي أو حاران تكفو هذا حلاشي أنا كو قاب صدا مسلمين تآنان نبين كاس أولي إلهي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون تلماتو دواتاس وكو الله رميان الله نكعب صدا وحو كرابي كرابتون هذا وحو فرعين فرطون هذين نبينا عليه الصلاة والسلام وهباري دتك ربا دعونا هيا كو دتك أقرا هيا كو مرقات دتك نغون هيا كو دتك عنسين هيا رب ما انتو نبينا عليه الصلاة والسلام وهباري والله اللعنة دي لعنة ما حيث نحاريس إلهي إياه لقى فوقي قف مربع دين نحاريس إلهي لقى فوقي هلاقون موضوع حكروا لي من مالها سيدا أوكل نبينا عليه الصلاة والسلام وحو يري داد مجران بو يري كسو ظاهرة إصلاح دود الربا إلا أبار أيا لغريد هيا وضركتين أبارها دعيو عذرها دعيو بلايد دعيسو وحسابوا الربا عالم كو عيسو در كيسان dad ma jiraan buu yiri dhaxdooda ka soo daahirayso laaluush illa waxa lagu ridaa argagax waad arkaysan caalamka nabadgelyo waa la waayay nin kasta uu cabsan haya jidadkii lama mari karo guriyihii lama joogi karo argagaxaas maxaa sabab u ah laaluushkina wuxuu noqday reer magaalnimo waxa kharibahay khaasatan magaalada aan joogno Kenya gudahan khaasan Mandera waxa kharibay oo baabi'iyay oo balaayadu ku riday oo barakada ka qaaday waa laaluush anti county imaanin laaluushka oo iska yaryara laakiin county markuu imaaday wixii boqolaal iyo kumanaan iyo ka baa malaayiin oo lagu xisaabtamaya dadka madaxda county-ga ilaahina ka cabsada laaluushkaas aad qaadanaysaan joojiya ظلمنا الضعفة إلهي وإذن أركها وإذن أجيهاي هدي هد أنا نجرين دد إذن قبنها يا إلهي إذن قبن دونا مالين تان أنا هنا يتكشل هين دون تان باب كيوب بلا لقدنا هلا ضعفه سيدا سوق النبي عليه الصلاة والسلام وحولي هاي هدي أنا مركز زنا يكوف أفتا سيدا سوق بلايا يا كدعي magaaladeena xaaladeena ilaahay ayaa og sida xaaladeed hadda ay tahay
marka waxa loo baahan yahay anagoo dhan inaan ilaahay ka cabsano ee xumaanta aan iska qabanno ayaa loo baahan yahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu cadeeyay ribada oo la qaato inay ka mid tahay dembiyaalka waaweyn ribada oo la cuno nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi war ka fogaada todoba oo saaxiibkood halaagaysa todoba arrimood oo dadka halaagayaan ka fogaada asxaabtii way weydiiyeen oo waxay yidhaahdeen maxay yihiin todobadaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay oo loo shariig yeelo waa dembi ugu weyn waxaa kale uu sheegay nabigeena calayhi salaatu wasalaam sixir dadka saaxiriinta ah muslim ma ahan hadduu rab ha tukado ninka saaxirka ah muslim ma ahan waa inuu towbad keena uu ka soo noqdo sixirka wuxuu ka mid yahay dembiyaalka waaweyn ayuu ka mid yahay waxaa kale oo ka mid ah dembiyaalka waaweyn naf muslim ah dembi la-aan in loo dilo nafti ilaahay xarimay dilitaankeeda oo yani marka oo la dilo ayaa dembigoy ka mid ah waxaa ka mid ah dembiyaalka waaweyn ogoonta xoolahooda oo la cuno sidulun lagu cuno dembiyaalka waaweyn waxaa ka mid ah ribo oo la cuno ayaa ka mid ah ribadiina way faaftay hataa waxay gashay naagihii qoryaha iibsanayay kuwii dhuxusha kuwii yani nyaanyada meel kastay gashay dad waaweyn iska dhaaf gawaari lagu gatiyo guri lagu dhisto waa laga soo baxay meel hoos ay usoo degtay in laga fogaado ayaa loo baahan yahay haddii wax yar aad haysato wax weyn indhaha intaad u taagto been laguu sheego yani markay lacag ribaha raadinin intaas yar aad haysato ilaahay ii barakee dheh haddii laakiin xoolahaada xalaasha ah hab yaraadeene aad ribo ku darto ilaahay kuwaasna wuu ku dhaafin hayaa balaayaa kugu dhici waad holci adigoo dhan iimaankaad ka kici ilaahay wuxuu u goodiyey kuwa ribada cunahayo haddii ay ka toobad keeni waayaan hadday ka soo noqon waayaan oo ay sidaas ay ku dhintaan inay naar galahayaan awalan markay qubuurta ay ka soo baxahayaan sidii yani marka oo nin jinni ku dhacay oo kale u dhadhacahayaan waxaa la yidhi colooshaba ma qaadi karaan ilan xaaraantiya yeeli ma istaagi karaanba markay dadka qubuurtooda ka soo baxayaan oo maxsharka u ordahayaan iyagii yani ma dhaqaaqi karaan la yidhi sida aayadda baa caddaysay iyagoo wada waalanaya ana qubuurta ka soo baxan coloosha aan qaadi karin kadibna maxaa u dambeeyay naar ayaa u dambaysa ninkii ribada iska dhaaf ilaahay ku tooba aqbalahayaa laakiin ninkii ku noqda naar ayuu galahayaa qaatim xumo ayaa ku dhici qaatim xumo ayaa ku dhici marka ilaahay khaatimada nagama hadleeye waa in xaaraanta laga fogaadaa wax allaala wixii xaaraan ah waa in laga fogaadaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hilib kasta ee ku buurta qof kasta oo hilibkiisa ku buurta yani ku buurta wax xaaraan ah naar ayaa hilibkaas ku habboon ayumaa laxmin nabata min xaraamin fannaaru awlaa bihi hilib kasta oo xaaraan ku soo baxa naar ayaa ku habboon markii yayn idin cajab gelinin dadkan xaaraanta ku naaxay oo guryaha ku dhistay gawaarida ku gatay oo yani marka isu malaynaya inay xidig oo kale yina ifhayaan yayn idin yani marka oo yani sirin waxa ku dhaant adoo caata noqdo gaajaysan oo rafaasan ayaa ku dhaant intaad xaaraan aad ku buurnaan lahayd maxaa yeelay taas waxa u dambaysay naar qofka haduusan toobad keenin oo ka soo noqonin nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisna aad ay ugu fogaan jireen waxa xaaraan ah warac ay ahaan jireen xalaasha ay marin jireen oo xaaraanta ay ka fogaan jireen laakiin waqtiga hadda aan joogno xalaasha waxay leeyihiin dadka naguma filno xaaraanaan rabnaa saa dadka arkaysaan waxa dhacahayo nin kastaba intuu ka gaar intaad ka gaaraysaan buu leeyahay waana tii lagu halaagsamhayey waana tii lagu halaagsamhayey waad arkaysaan xaaladda aan joogno
caawimaadkii oo waddanka la soo siiyo oo dadkii jirnaa oo loo soo bixiyey ayaa la dhacahaya kii miskiinka wixii looga tirgalay waa la dhacaya kii jirnaa wixii looga tirgalay waa la dhacaya dhibaatadii dhacday wixii looga tirgalay waa la dhacaya marka dadka dhacaya ayaa dhib qaba moogi dadka kale dhib ma qabaan ilaah subxaanahu wa tacaala aan ka cabsanno aan xisaabtanno waan dhiman doonaa waa nagala dambeeyaa waana la xisaabtami doonaa waxyaalahan la boobhayo waa laga tegi doonaa keligeen ee qabriga geli doona munkar iyo nakiir ayaa nala xisaabtami doono hadhow jawaabta aday ku jirtaa xoolahaadina qof kale ayaa ku raaxaysan doona ama yani marka uu ku tuman doono adigina xisaabtood adiga ku dambaysaa xoolahan waxaa la yidhaahdaa xalaaluhaa xisaab xoolaha xalaashoodu waa xisaab waa lagula xisaabtamahaya wa xaraamuhaa ciqaab xaaraantooduna waa ciqaab qofka loo cadaabahayaa si nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu sheegay aakhire markii dadka la soo saaro dadka masaakiinta oo mu'miniinta ah oon dembiba aan qabin toosay jannad u galahayaan dadkii mu'miniinta ahaayeen muttaqiinta ahaayeen xoolo ilaahay siiyey xoolahoodan xalaasha ay ahaayeen intii 500 la xisaabtamahayo kuwii masaakiinta hore ay ka galahayaan jannada kuwii xoolahooda xaaraanta ahaayeen iyaga laba xisaabtamaya naar u hore loogu ridahaya marka hadaba aan xisaabtano adduunkan uu yuusan nasirin aakhira aan ka fikirno diinteena ku dhaankeed aan ka fikirno ummadeena badbaadinteed aan ka fikirno adduun yuusan nasirin waan ka tagi doonaa nin kastaba saacad ay leeyahay saacadiisa ma dhaafi doono saacadiisa xisaabna way noo dambaysaa ilaaha noo fududeeye markuu hurdada laga kaco adduun indhaha loo taagin aakhira yaan la hilmaamin wixii riba oo dhan hal iska ilaaliyo wixii riba oo dhan wixii xaraan oo dhan aan iska ilaalino ألا صلوا وسلموا على البشير النذير فقد أمركم الله بقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا دائما وتوبة نصوحا وراحة عند الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله